ururka Xamaas ayaa ku hanjabaya inay ku dhow yihiin inay dib ugu laabtaan dagaalka sabab la xiriirta weerarada iyo qaraxyada ay ka geysanaysa Israel godad ay go'doon ku yihiin kumanaan dagaalyahan oo ka tirsan ururka Xamaas oo ku sugan godadka dhulka hoosteeda ku yaala ee Rafah iyadoo Xamaas war-saxaafada rasmi oo ka soo baxay oo Al Jazeera ay baahisay ku sheegeen inay laga maarmaan tahay in dhexdeeyaashu arrintan soo farageliyaan oo la helo marin ammaan ah oo ay ku badbaadaan dagaalyahanadaas. Xamaas waxay si adag u cambaareen howlgalka Israel ee ka wado godadka dhulka hoostiisa ee Rafah oo ka tirsan koonfurta marinka Gaza halkaas ay ku go'doonsan yihiin dagaalyahanno tir ahaan si rasmi ah loo shaacin balse ilo kala duwan oo gudaha Gaza ay ku qiyaasayaan inay gaarayaan 10,000 oo dagaalyahan qaarna ay ku jiraan godad isku xiran oo gaaraya 100 mitir oo dhulka hoostiisa sida Xamaas ay sheegtay. Raggan ma ahan dagaalyahanno kaliya balse waa kuwii ka mid ahaa unugyadii u adkaystay dagaalkii cuslaa ee 2 sano socday kuwaasoo lagu tilmaamay difaaca Rafah. war-saxaafadeedka ay baahisay Xamaas oo Al Jazeera soo xigtay ayaa waxaa lagu cadeeyay in Israel ay ku howlan tahay in raggaasi lagu ugaarsado godadka si loo dilo ama loo qabto iyagoo dhulka hoostiisa ku jira. waxayna arrintan ku tilmaamtay Xamaas jabin cad oo lagu sameeyay heshiiska xabad-joojinta ee Gaza iyagoo ku eedeeyay Israel inay si ula kac u doonayso inay burburiso heshiiska oo dhan. Xamaas waxay sheegtay in weerarada Israel ay socdaan xilli dhexdhexaadiyaashu ay si dhab ah ugu howlan yihiin si loo heli lahaa xal u ogolaanaya in dagaalyahanadani ku go'doonsan godadka ay halkaasi ka soo baxaan si ay ula midoobaan qoysaskooda. Xamaas waxay war-saxaafadeedkeeda ku faahfaahisay in muddo bil ah ay waday dadaal ballaaran oo ay ku jireen kulamo ay la yeelanaysay hogaamiyaal siyaasadeed, wakiilo caalami ah iyo dhexdhexaadiyaal carbeed iyo reer galbeedba ah si loo helo hanaan lagu badbaadin karo dagaalyahanada ku jira godadka Rafah. waxaa la sheegay in ay soo gudbisay Xamaas qorshayaal dhowr ah mid ku saabsan in la sameeyo marin ammaan ah oo iyaga u gaar ah dagaalyahanadani si ay godadkaasi uga soo baxaan. mid kalena wuxuu ku saabsanaa in loo wareejiyo goob ammaan ah inta lagu jiro xabad-joojinta iyo midka saddexaad oo la xiriira in loo ogolaado inay ka soo baxaan godadka iyagoo aan hub wadan kadibna ay la midoobaan qoysaskooda. sida ay sheegtay Xamaas dhammaan fikradahani waxaa lala wadaagay dhexdhexaadiyaasha oo ay ku jiraan Masar, Qatar iyo Mareykanka oo ah mid ka mid ah damanaaqayaasha heshiiska xabad-joojinta. waxaa la sheegay in dhexdhexaadiyaashu ay muujiyeen diyaar garow iyo soo dhaweyn laakiin Israel ay ku adkaysatay inaysan joojin doonin howlgalladeeda military ee ka wado Rafah iyadoo uga dan leh amaba ku andacoonaysa inay doonayso inay meesha ka saarto kumanaanka dagaalyahan ee godadkaasi ku go'doonsan. saraakiil Israel waxay sheegeen in tani u tahay fursad aan markasta la heli karin loona baahan yahay Israel inay ku adkaysato inay sii wado weerarada qaraxyada iyo kala goynta godadka Rafah si dagaalyahanadaasi looga takhaluso aysan mar kale nolol ugu soo bixin. balse war-saxaafadeedka Xamaas ka soo baxay ayaa lagu yiri Israel waxay iska tuurtay dhammaan dadaaladii la soo bandhigay waxayna dooratay inay ka hormariso dil iyo qabasho halkii ay ka ilaalin lahayd heshiiska xabad-joojinta. waxaa intaa ku dartay Xamaas in Israel ay ka shaqeynayso sidii heshiiska ay si buuxda u burburin lahayd si ay ugu laabato dagaal buuxa ay ku andacon doonto inay ka takhalusayso unugyada Xamaas ee ku harsan koonfurta marinka Gaza. warbixino kale oo ka imaanaya Rafah waxay tilmaamayaan in dagaalyahanada ku go'doonsan godadkaasi ay ku jiraan xaalad aad u adag maadaama godadka qaarkood ay hawadu ka yaraatay taageerada cuntada iyo dawada ay halkaasi gaarayana ay meesha ka baxeen. sidoo kalena ay jiraan goobo ay Israel qarxinayso si ay u jabiso xarumaha isku xirka ee godadka. ila deegaanka ayaa sheegay in dagaalyahanadu aysan doonin inay gacanta u galaan Israel maadaama aysan marnaba doonin inay isdhiibaan amaba ay ku dhintaan gacanta Israel taasoo Xamaas ku adkaynaysa in loo baahan yahay fargelin degdeg ah si noloshooda loo ilaaliyo. arrintan amaba qadiyadda la xiriirta badbaadinta dagaalyahanada kumanaanka ah ee ku sugan godadka dhulka hoosteeda ku yaala ee Rafah ayaa sidoo kale laga arkayaa wajidada saraakiisha Xamaas gaar ahaan kuwa arrimaha siyaasadda iyo wadaxaajadka u qaabilsan carab badan taas oo laga digayaba in marka dambe ay ku qasabto Xamaas inay dagaalka dib ugu laabato si ay uga hortagto in halkaasi lagu dilo amaba ay ku dhintaan dagaalyahanadeeda lagu go'doomiyay. Xamaas waxay Israel ku eedeynaysaa inay ka hor istaagtay dadaalada dhexdhexaadiyaasha oo ay ka mid ahayd in raggaasi loo ogolaado waddan nabad ah oo ay uga baxaan godadkaas muddada xabad-joojinta lagu jiro taasoo ahayd qorshe ay Xamaas ku tilmaamtay midda kaliya ee lagu badbaadin karo. waxay sidoo kale sheegeen inay Israel ku fashilantay isku day Xamaas ku doonaysay in dagaalyahanada qaarkood loo wareejiyo dhanka Masar halka qaar kalena la siin lahaa damaanad ah inaan la beegsan doonin. Xamaas waxay mas'uuliyadda buuxda dusha u saartay Israel waxayna ugu baaqday dhexdhexaadiyaasha inay si degdeg ah u soo galaan arrinta iyagoo cadaadis ku saaraya Israel in loo ogolaado dagaalyahanadana ku jira godadka Rafah inay si nabad ah ugu laabtaan guryahooda. waxayna raggaa ku tilmaamtay Xamaas halyeeyadii laf dhabarka u ahaa difaaca Gaza
iyagoo ugu yeeray noolaha ay ummadda Falastiin u arkaan astaan sharaf iyo dulqaadba. arrinta la xiriirta kumanaanka dagaalyahan ee ku go'doonsan Rafaxna waa mid hadda si weyn loo hadalhayo, taas oo laga walacsan yahay inay dib u soo celiso dagaalkii Mareykanka Gaza, maadaama Xamaas ay u arkayso wax aan loo dulqaadan doonin iyo ceeb aan weligeed ka harayn haddii ay u ogolaato amaba ay uga tagto gacanta Israel in kumanaankaasi dagaalyahan ay ku baxaan. sidoo kalena silcinta iyo weerarada qaraxyada ah ee laga geysanaya godadka ayaa iyaguna jabinaya heshiiska, taasina waxa ay tahay walaaca ugu weyn ee laga qabo in mar kale dagaalku soo laabto. ugu dambeyntiina haddii aan xal loo helin amaba Israel la joojin, waxay Xamaas u muuqataa in dhexdeeda arrintani khilaaf ka dhalin doonto, maadaama dagaalyahanadaasi iyadoo la arkayo aysan saraakiisha Xamaas u adkaysan doonin inay u ogolaadaan Israel inay halkaasi ku burburiso. ku dirso baysi lacagahaaga oo si degdeg ah u helaan ehelkaaga iyo asxaabtaada iyadoo ugu dhacaysa telefoonkooda gacanta sida EVC, SAD, Sahal, MTN iyo M-Pesa. kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka.